dalkeenni maanta qayb baa maqan oo kulmiyaa sababay wadagtayno heshiiskaa uu galaya cid uu kala tashaday ma jirto mucaaradkaa kalama aanu tashan keligiibuu intuu halkaa iska baxay heshiis soo galay maantana wuxuu kaxaysanayaa baan maqlayaa safarka kale raggii adeeraday ahaa ee sharafta lahaa ee daahir rayaale ka mid ahaa ee cabdiraxmaan ow cali ka mid ahaa waxaan leeyahay adeerayaal ninka aad raacaysaan iska hubiya intaydaan raacin baan idin leeyahay iska hubiya awdal waa amni weeyi awdal waa hooyadii nabadda weeyi awdal wax ka jiraan ma jiraan laakiin waa go'doon siyaasadeed oo ay nagu hayaan qolada kulmiye waa go'doon siyaasadeed oo ay nagu hayaan muuse biixi iyo tiimkiisu shaar dawladeed iyo shaar siyaasiyiintu muuse inoo soo xidhay ayuu gobolkeenni iyo dadkeenni meel walba ka goodoomiyey waxaan leeyahay kullay shaqa inoo taalla shaqada inoo taalina waxa weeye inaynu maanta codkeenna iyo cududeennaba aynu siino xisbiga waddani oo aynu ognahay in xaaladda uu dalkeennu ku jiraa ay maanta tahay xaalad badbaado in dalkeennu maanta u baahan yahay inaynu ka saarno marxaladdan maanta ee xisbiga kulmiya uu ina gaadhsiiyey waxaynu ogsoonnahay maanta xisbigaa kulmiye waxa madaxweyne waa muuse biixi wuxuu idhaahaa reer awdal aad baan u aqaanaa garashada uu ina garanayaa ma waxa weeye inuu gobolkeenna go'doomiyo garashada uu ina garanayaa ma waxa weeye wakhtiguu esanam ahaayayna soo galay wixii uu sameeyey garashada uu ina garanayaa ma waxa weeye reer awdal inaanu waxba iskaga tirin oo ay yihiin dad aanan damqan waxaan leenahay maanta aad ka arkaysaa sanduuqa waxa ay yihiin bulshada reer awdal maanta aad ka helaysaa wixii aad gashatay muuse biixi adigiyo xisbigaaguba bulshada awdal maanta aad ka arkaysaa wixii aad gashatay waxa uu ina gashaday waxa weeye in gobolkeennu cir iyo dhul iyo bad intaba aan ka xidhannahay waxa uu ina gashaday waxa weeye taa ugu dambaysay shalay ee hay-adaha UNDP shirka ay ku qabsanayeen gobolkeenna shir sanadlihii ahaa layidhi ku qaban maysaan oo awdal amni maaha war awdal ma amni baa mise amni maaha ilaah baan idinku dhaarshaye awdal waa amni weeyi awdal waa hooyadii nabadda weeyi awdal wax ka jiraan ma jiraan laakiin waa go'doon siyaasadeed oo ay nagu hayaan qolada kulmiye waa go'doon siyaasadeed oo ay nagu hayaan muuse biixi iyo tiimkiisu shaar dawladeed iyo shaar siyaasiyiintu muuse inoo soo xidhay ayuu gobolkeenni iyo dadkeenni meel walba ka goodoomiyey innaguna maanta sanaaduuqda waan ka goodoominaynaa oo hal cod ka heli maayo bulshadeenna iyo gobolkeenna dhammaanteen waa inaan isgaadhsiinnaa in kulmiya maanta hadduu cod inaga hela ay la mid tahay iyadoo hal awdal oo hal qofoo reer awdal uu dhiigbaxay ay la mid tahay ma oggolaanayna dhiigbax inagaga baxa codka aynu kulmiye siino maanta dhammaanteen waxaynu u codaynaynaa hadduu allayna gaadhsiiyo xisbiga waddani oo somalilan ay isku raacday dalkeennii maanta qayb baa maqan kulmiyaa sababay dalkeennii maanta qayb baa maqan oo kulmiyaa sababay wadagtayno heshiiskaa uu galaya cid uu kala tashaday ma jirto mucaaradkaa kalama aanu tashan keligiibuu intuu halkaa iska baxay heshiis soo galay maantana wuxuu kaxaysanayaa baan maqlayaa safarka kale raggii adeeraday ahaa ee sharafta lahaa ee daahir rayaale ka mid ahaa ee cabdiraxmaan ow cali ka mid ahaa waxaan leeyahay adeerayaal ninka aad raacaysaan iska hubiya intaydaan raacin baan idin leeyahay iska hubiya daahir rayaal waa kuu shalay lahaa goorxulla soo qaadka ugu yeedhaya weeyi ma kiibaa maanta garab u noqonaya muuse biixi hadduu daahir rayaal abaal celinayo garxajis iyo habar yoonis baa abaal ku lahay ha celiya abaalkoogii kuwaasaa abaal uga budnaa laakiin maanta muuse biixi abaal kama mudan waxaan leeyahay ha degdegin adeero kuwii abaalka kugu lahaabaa ku soo eegaya kuwii shalay kugu ilaalinaya madaxtooyada markuu daahir rayaale markuu muuse biixi damcayey inuu kuugu soo galin lahaa dhebida kaga soo saara kuwii lahaa dhab libaax buu ku jiifaabaa maanta taagan oo abaalkoodii ku sugayaaye ha raacin ninkaasa iskaga hadh baan leenahay waynaahayn baariis iskaga laabaan ku ixtiraanno farasiiska ay ku laabo dhex ka ahu baan leenahay labadaa mid soo galo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu